Nagiid Ojan waxa uu ku jilay musalka Kulus Cusmaan doorka Boran Alb. Si kastaba ha ahaatee doorka Boran Alb waa shakhsi malaa'ad ah, yacni aanba ka mid ahayn taariikhda kuwa ku qoran iyo sida ay sheegaanba taariikhyahanada. doorka Boran Alb waxa uu ku jilayaa inuu yahay Cusmaan saaxiibkiisa u dhow iyo ciidamada qaaska oo Cusmaan leeyahay. waxaa lagu saleeyaa oo la sheegaa in uu ku jilayo noocyo badan oo ciidamada qaaska ah inuu lahayo Cusmaan Bey. ma jiraan wax caddayn ah ama muujinaya inuu doorka ama shakhsi la yiraahdo Boran Alb uu jiray. wuxuu ka mid yahay doorarka malaa'adka ah ama la sameeyay si loo horumariyo tayada musalsalka, laakiin waxaa lagu saleeyaa inuu astaan u yahay ciidamo badan oo sidaasi qaas u ahay balsan taariikhda lagu xusin geesiyaalna ahay una sheegay dowladda Cusmaaniyiinta. maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsanay taariikhda ama inuu doorka Boran Alb yahay mid jira ama aan jirin. ugu dambeyn waxaynu ogaanay doorka Boran Alb inuu yahay mid malaa'ad ah oo Maxamed Boosdaaq asiga sameeyay si uu musalsalka xamaasad ugu yeelo. haddana waxaa idin leenahay sidaas nabadgelyo.